السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوري waa saaxiibada qiimaha badan ee ku xidhan danaalkan. Hadaba Cumar miyuu ogaaday Axmed Yilmaz in uu dhalay? Runta waxay tahay Cumar arinkaasi maba ogaan. Sababtoo ah hadalkii u dambeeyay ay Safekeetri wuxuu ahaa yarkan adiga dhalay, magac Cumar gabi ahaanba lama soo hadal qaadin. Marka sidaas daraadeeda Cumar wax kama ogaan arinkaas ku saabsan aabihiisa, mana ogo in Axmed Yilmaz uu dhalay. waa tahay haddii daawada nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar, sidoo kale muuqaalka like noo saar. waa mahadsantahay intaa ka bacdi ee soo dhawow. haddaba ugu horreynta haddaan idiin bilaabo akhbaarta u horeysa ama warka u horeeya farxadda leh waxay tahay korkac ayuu sameeyey ayay ahayd xalqadii u dambeysay. sidoo kale waxaa korkac sameeyey faalladeena ayaa xitaa korkac sameysa ayay ahayd. maasha allah one day 3 curfews maybe inaan kusoo laaban doono sidii hadda ka hor aynu daawan jireen dadka one day 8,000 ilaa meelaha. soo marka xalqadii u dambeysay ee 59aad waxay sameysay korkac aad u fiican, waxaana mar kale kusoo laabanay kaalinta saddexaad. waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala toddobaadka soo socda in aan ku laabano kaalinta koobaad. kaliya 2 taxan oo kale ayaa naga horeeya, waxayna 2 taxan kale yihiin Goonuli oo laga daawado telefishinka TRT oo isku maalin nala daawado, kaas oo daawashada naga xooga mar waliba haddii maalin kale la daawado aad ayaan korkac u sameyn lahayd ayay ahayd. sidoo kale musalsal kale isagoo lagu magacaabo Birgun ishigay, waxaan filayaa isagana ATV ayaa laga daawadaa, isla caawa ayaa la daawanaya, maalinta Isniinta ayaa la daawadaa. sidoo kale runtii caawa waxaa kulmaya mas'ale aad u badan sida Alab Arsilaan, musalsalka Birgun ishigay taxana kale asaguna muhiim oo seasonkiisii laba hadda la daawanayay. berit hole bal waan arkaynaa midka kaalinta koobaad taxanayaashaas u soo baxa midka aadka loo daawado caawa. khamiistii u dambeysay ayaa laga yaabay telefishinada Turkiga kadib markii 5 telefishin oo Turkiyada ka mid ah kuwaasoo telefishinada ugu caanka telefishinada ugu caankasan ama telefishinada aadka loo yaqaanay musalsalada caanka ku ah ay 5 musalsal soo daabacday, isla markaana wax la daawado intii la garan waayay telefishinka Show TV loo batay oo taxana lagu magacaabo Hayat Gaalsin Bildigi Gibeya ama af Soomaalihan wuxuu noqon noloshu waxay u imanaysaa sidii hore ama noloshu sidii doonaa u timaado oo kale. maalinta khamiista ayaa la yaabay bal caawana yaabkii ku ka daran baa jiro, taxanayaal badan baa kulmaya. waa tahay intaan kaga nimaano bal taxanayaasha Turkiga waxyaal macluumaadooda u dambeeyay. waa tahay haddaba gooska sidaan uga jeednayba Axmed Yilmaz waa mid u muujinaya Cumar markaan naxariis aad u badan. marka hore waxaan islahayn Axmed Yilmaz gabi ahaan buu ka soo horjeedaa Cumar, laakiinse gooska dhexdiisa waxaan uga jeednay Axmed Yilmaz in uu Cumar naxariis u muujinayo isla markaana uu rababa. haddaba Cumar ugu horreyntii lagama burinin iskuulka haddii aad isweydiinaysid midaas, marnaba lagama burin. saan gooska kusoo aragnayba Axmed Yilmaz wuxuu sheegay mawduucaas gabi ahaanba in lasoo afjari doono, Cumarna ma ahan mid laga burin doono. waa tahay Cumar sidoo kale Axmed Yilmaz ninka lagu magacaabo xaaskiisa Shewaal wuxuu u sheegay in uu Cumar dhalay. haddaba Shewaal falcinteedu soo noqon doontaa ama xalqadaha soo socda soo noqon doontaa Axmed Yilmaz ma laga yaabaa in uu khiyaamo Shewaal? haddaba dadka intooda badan waxay leeyihiin Axmed Yilmaz maadaama uu ogaaday in Cumar uu dhalay isla markaana uu ogaado qofka uu dhalay wuxuu ku laaban doonaa Suuzaan, isla markaana Shewaal waxay handadi doontaa xalqadaha soo socda ee Suuzaan iyo Cumar iyadoon ugu handadaysa ama ugu hanjabaysa in ay ka fogaadaan Axmed Yilmaz. xalqadaha soo socda ee dhici doona ma sheegi kara xalqada soo socota inay tahay iyo xalqada ka dambeysay, labada mid ka mid ah ayuu macluumaadkani sheegaya inay dhici doonaan. Shewaal ayaa u hanjabi doonta Suuzaan iyo Cumar si ay uga fogaadaan Axmed Yilmaz ninka lagu magacaabo. Axmed Yilmazna waxaa loo badinayaa kaliya lama hubo in ay isku soo laaban doonaan Suuzaan maadaama markaan ogaaday in ay u dhashay wiil. sidoo kale Axmed Yilmaz xalqadii u dambeysay Suuzaan la hadalkeeda xiiseyn badan ayaa uga jeednay halkaasi wuuna xiiseynayay aad u xiiseynayay kadib markii uu sii ogaadana inkastuu ogaadayba kadib markuu sii ogaado inay u dhashay Cumarra aad ayuu uga sii helayaa, isla markaana wuxuu ka daba tagayaa iyadii Caakif xiriirkooda halkuu ku dambeeya inay hadda ka hor iskursayn dhibaatada dhex taala. kadib markii ogaado in Suuzaan iyo Caakif ay istagaalsayin hal meel aysan wada joogin, Suuzaanna ay dooneen wuxuu isku day doonaa Caakif inuu gabi ahaanba ka furo. sidoo kale asxaabteena qiimaha badan waxaa la sheegay macluumaad kale oo rasmiya kaasoo ah kala tagga IBK iyo Beerkii. haddii aad ahayd taageera #IBeer markaan wuxuu u muuqdaa mid baabi'i doona. gooska dhexdiisa saan u wada jeednayba Beerkii IBK wuxuu ku dhahay adiga intaad agteeda iga tagtay ama dhankayga intaad ka tagtay ayaad ka soo jeesatay safka Dooruug. wuxuu ula jeedaa ama macnaheedu ay tahay aniga garabka intaad ka dhaqaaqday ama surakadayda ama in saaxiibtinimadeeda
ayaad duruug iga doorato duruug iyo asxaabtiisa ayaad ku biirtay isla markaana ay bike wadharbaaxaysay taasina waxay caddayn aad u weyn u tahay in halkaas uu ku burburi doono hashtagga ay beer xalqadaha soo socdana ay bike iyo beerka sidaas ay ku kala hareen ma sheegi kari xalqadaha wixii kasii dambeeya inay heshiin doonaan laakiin labada xalqada soo horeysa ay bike iyo beerka sidaas ay ku kala hareen ee la socda waa tahay beerka yaa wehelin doona sidoo kale ay bikeen yaa wehelin doona beerka ilaa iyo hadda waxaa loo badinayaa inay wehelin doonto Yasmiin laakiinse lama hubo Yasmiin san u jeedna xalqad u dambeysay dhanka duuruug ay ku badanaysaa oo mar duuruug ay lacagta ka bixisay ahayd mar uu sharaab iibsanayay sharaab ma dhigi kara yani champagne khamri adiga ma sheegi kari wuxuu yahay marka ayada ay lacag ka bixisay oo lacagtii ka dhiibtay ay ahayd dhanka duuruug ayayna u badanaysaa xitaa duuruug ay isla fadhiistaan laakiinse duuruug waa qof qalbi adag Cumar iyo dadkan ma aha Aasiya baa laga siiyay anagana Aasiya waa la rabnaaye hal si joogoon laakiin sama sheegi kari inuu fikirkiisu isbedeli doono markaano ay Yasmiin isku badan doonaan laakiin ilama aha inuu Aasiya ka soo tagayo laakiinse Yasmiin xaggeeda waxay u badatay duuruug haddaba beerka ayaa la sheegaya inuu asaguna Yasmiin dhankeeda ahaan doona laakiin Yasmiin ma aqbalayso oo ma rabto beerka ayaa raba kaliya sidoo kale maadaama xalqada intii u dambeysay aragnay arin muhiim ah kaasoo ah Cumar iyo Cumar aabihi ogaadeen Cumar dhalay maadaama aragnay wax laga yaabaa inay iloodo arrinkiisa Suusay Cumar dhex yaalay daawada mar waliba niyada ku hay Suusay Cumar way kala tageen way u kala dhamaatay Suusay markaan way xanaaqday sidii u heshiinayaan ma sheegi kari waxaba kaaga sii daran Suusay intaas ay ka xanaaqday markii sii ogaato Leila in ay lacag siisay oo Cumar lacag deynisay inkastoo Leila ay rabtay markii hore inay siiso Cumar u badin ahaan u qaatay markii ogaato way sii xanaaqaysaa wax ka dhaxeeyaan bay sii moodaysaa Cumar ilmahan markaan inuu daba ordayo Suusay waa sida aan rajeynayay laakiinse Suusay ay ishagaajin doonta ee leeyahay yani fikir doonta oo ku soo laaban doonta waa tahay inkastoo macluumaadada in kala soo raagnay yani hadii aan dhaano hal muuqaal baan ku soo koobaynaa dhammaan macluumaadada iyo sida dadku sheegayaanba macquul maaha hadaba mowduuca u dambeeyay ee muuqaalkan kaga hadlaynaa ee wuxuu yahay lacagtii gooska aan ku aragnay Aasiya ninka lagu magacaabo Cumar ay haysteen yaa keenay halkaysa ka timid waa mid aad iyo aad kala soo weydiinayo ilaa hadda horta wax macluumaad rasmi ah arrinkaas kama soo bixin laakiinse lacagtaas waxaa loo badinayaa in ninkii Ismaaciil ahaa uu keenay isla markaana islaantii seefkii ahayd ayaa soo dhiibtay lacagtaasna waa muuqaal toddobaad ka hor ayaan filayay inaan idin sheegay maalmihii aan islayn seefkiiba soo laabatay sax toddobaad ka hor يعني lacagtaas waxay isku day doonaan inay guri ku kareystaan waa sida loo badinayo inay guri ku kareystaan nolol cusub ku dhistaan oo mooradan iskaga baxaan ama xir digaagan iskaga baxaan nolol cusubna ay iska galaan oo normal iska ah laakiin se noloshii taajirnimada ah inay ku laabaneen ilama ah Axmed Limaad umbataago aan keeda lama fahanteen marka lacagta sideed suudinaysid waxaa loo badinayaa in nolol cusub ku dhisanayaan sidoo kale deyntii ay Leila ka soo qaateen way celinayaan haddaba alla arin muhiim ah nidii loo bilaakin muuqaalkan yani nagu si dheeraaday aan filayaa arrinkaas arrin kale ma waa toolka horta toolka dhaawac ma soo gaadhin muuqaalkii xiga la socda wada arrinka toolka ballan waay inaan mid idinku faafahiyo yani macluumaad ayaa ka soo baxay toolka dhaawaciisa mid ayaan idinku faahfaahinaya daawade fadlan muuqaalka like noo saar sidoo kale haddii aad ku cusubtahay channelkan walaala family subscribe noo saar waanigo saaxiibkeena Khalid wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh